barnaamijkan maanta gebi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa waxaa meel adag maraya weerarada isku hayaan Israa'iil iyo Iiraan iyadoo saacadihii la soo dhaafay duqimo culus labada dhinac ay isku qaadeen magaalada Tel Aviv ayaa loo geystay duqayntii ugu ba'nayd dagaalkan waxaa laga cabsi qabaa in uu ku fido gobolka oo idil isla markaasna ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu doonayo in Mareykanka uu ku soo jiido dagaalkan iyadoo qorshuhuna uu yahay sida Netanyahu u damacsan yahay ama uu ku haminayo in ugu dambeyntii meesha laga saari karo oo sida uu aaminsan yahay taliska ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan kadibna la hirgelin karo aragtida ah in isbedel lagu sameeyo hoggaanka waddanka Iiraan meesha laga saaro hogaamiyaasha kacaanka Islaamiga ah qobaradu waxay qabaan tan inay noqon karto mid aad iyo aad u adag dhanka Mareykanka inkastoo Netanyahu arrintaas uu ku haminayo ilaa iyo hadda waxa muuqata sida qobarada ay sheegayso inuu cabsi u qabo danihiisa gobolka oo ay ka mid yihiin saldhigyada militariga gobolka ku yaala Iiraan waxa leeyahay ilaa hadda awoodda isticmaashay ma ahan mid dhameystiran gantaalo fara badan gaar ahaan gantaalada guuxooda ka dheereeya sida gantaalka Fatah iyo diyaaradaha guuxooda ka dheereeya droniska ayaysan weli isticmaalin sida qobaradu ay sheegayso barnaamijkan waxaynu ku eegaynaa falanqeeyaal caalami ah carabta wadamada reer galbeedka iyo Iiraan oo ka hadlaya arrimahan iyo meesha ay ku dabayn karaan suurtagal ma tahay dagaalka Mareykanka inuu soo galo sidee Iiraan oo laga dilay saraakiil muhiim ah isla markiiba ugu suurta gashay in duqeynta culus Israa'iil ay ku qaado iyadoo lagu soo waramayo dhimashada iyo dhaawaca imika dhanka Israa'iil inuu ku sii dhow yahay ilaa iyo 100 waa inta Israa'iil ay qirsan tahay waxaana lagu soo waramayaa goobaha la beegsaday inay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga iyo xarumo muhiim ah oo lagu tilmaamay inay u dhigmaan kuwa waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka wararkaas ayaan barnaamijkan ku eegaynaa maxamed cadde oo soo akhriyay macluumaadkan ayaa qadka ku jira maxamed dabcan war weyn uu jira oo aan ku su'aali doono oo ku saabsan Iiraan inay noqotay wadankii ugu horeeyay sida warbaahinta Iiraan ay sheegayso kuna dhow ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan in la soo rido diyaaradda la yiraahdo F-35 laakiin bal waxaad inoogu bilowdaa khabiirka arrimaha gobolka bariga dhexe Marwan Bishara arrimahan uu ka hadlayo xaaladan socota Israa'iil warka ay reer galbeedka ku taageerayaan ay xaq bay u leedahay in isdifaacdo iyo Iiraan oo leeyahay adna isma difaaci kartid Marwan Bishara oo la fagura arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu sheegayaa in Israa'iil ay marmarsiyo ka dhigato in nafteeda difaacayso weeraro dambiyaana in ay ka gashay wadamo badan oo gobolka bariga dhexe ku yaala sida way yeeli kartaa buu yiri Israa'iil way yeeli kartaa sidaa sababtoo ah waxaa kharash gareeya hubeeya siiya taageero diblomaasiyadeed waddanka Mareykanka waxa uu intaasi ku daray in Israa'iil militarigeeda awoodiisa ballaaran ay tahay mid ka timid dowladda Mareykanka waxaana uu sheegayaa in aynan Israa'iil awooddaasi ballaaran lahayn Israa'iil oo Mareykanka uu taageero ciidankeeda ayaa hadda waxaad moodaa in ay duqeynayso meel walba waxayna u dhigan tahay in ay adeegsanayso agabkii Mareykanka Bishara ayaa sidoo kale waxa uu soo xiganayaa weerarkan ugu dambeeya Iiraan lagu qaaday waxa uu yiri dhibaatada aaskeeda waxa weeye ama dhibaatooyinka gobolka bariga dhexe hore uga dhacay in cid walba ay u muuqato in ay la tahay gaar ahaan Israa'iil in ay dow u leedahay inay waxay rabto samayso ciday rabto ay tilaabo ka qaado xadgudub ku samayso qawaaniinta caalamiga ah iyo qawaaniinta ka dhanka ah qawaaniinta bini'aadanimada iyo wax allaale wixii ku soo dhaca maskaxdeeda sababtoo ah waxaa muuqata in hadda ay tahay ujeedada ugu dambeeya inay tahay in Israa'iil qadiyadeeda ay ka muhiimsan tahay qadiyadaha kale ama dalalka kale sida Bashar hadalku dhigayo Iiraan xaq uma laha sidoo hadalku dhigayo inay nafteeda difaacdo halka ay Israa'iil xaq u leedahay in ay nafteeda difaacdo sababtaas weeye Israa'iil in ay xaq u yeelatay in ay si orakac u duqeyso Iiraan
oo ay wadamada qaar yiraahdaan xaq ay u leedahay inay nafteeda difaacdo haddii Iiraan ay duqeyso Israa'iil waxa leeyahay maya Iiraan falka ay sameysay waa fal argagixisa xaq uma laha nafteeda inay difaacdo arrintaasi Israa'iil waxa ay keentay inay xasuuq ku geysanayso ayadoo leh nafteeda ayaa difaacaya marinka Gaza ka geysanaysa xasuuq sidoo kale Israa'iil waxay xoog ku qabsanaysaa wadamo dariska ah sida Syria iyo Lebanon oo kale ayadoo ku andacoonaysa inay nafteeda difaacaysa waxa Israa'iil u muuqataa in 60kii sano ee la soo dhaafay in ay xoog ku haysatay dhulka Falastiiniyiinta ayadoo ku andacoonaysa in nafteeda difaacayso hadda waxa ay wadaa inay duqeyn meelo badan ka geysato haddana Iiraan ayay waxay ku duqeysay nafteeda ayaan difaacaya waxaana muuqata arrintaasi inaynan ahayn mid maangal ah waqtigeena in hadda uu isbedelayo maadaama ay hadda isku gashay cid iska caabin karta waa gartay arrin kale oo muhiim ah Maxamed jirta shalay saacadan oo kale wararkayga waxaynu ku jirtay Iiraan in laga diray saraakiil aad muhiim u ah taliyihii ciidamada guud taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka taliyihii ciidamada cirka saraakiil muhiim ayaa la diray laakiin saacado gudahood waxaynu arkaynaa madaafiic roobka inay kaga dhigtay Iiraan magaalada Tel Aviv oo duqeyntii ugu ba'aneed abid ay ku dhacday waxaynu daawanay iyadoo la beegsaday xarumo kala duwan wasaaradda gaashaandhigga ay ka mid tahay xaruntii sirdoonka ay ka mid tahay saldhigyo ciidan Iiraan waxay leedahay waxaan beegsanay Ramad David oo ah saldhig military ciidamada cirka oo diyaarado ka soo kacayeen waxaan beegsanay bay leedahay Navatim waxa la leeyahay diyaarado badan oo F-35 ayaa loo qaaday Greega iyo Khubrus kadib markii Iiraan ay si xun u duqeysay saldhigyada militariga diyaaradaha qaarkood Iiraan waxay leedahay meel ay ku laabtaan ma jirto saldhigyada waa burburinay Israa'iil ay geysanayeen waxa la yaab leh sidoo kale in la sheegay 5 diyaaradaha drone-ka ah inay soo rideen ciidanka ilaalada xuduudaha ee Iiraan iska dhaaf ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ciidamadii booliska ayaa soo riday 5 diyaarado drone ah maxay qubarada ka tiri marka in iyadoo waxa la yiraahdo isku xirkii taliska guud ee ciidanka la dilay madaxdii in sidan Iiraan ay dib isku abaabasho si degdeg ah weerarkii gaadmada ahaa Israa'iil ku qaaday gudaha Iiraan 24 saac ka hor dhab weeye waxa uu ahaa mid darbaxyo culus ku ahaa safka hore ciidanka qalabka sida iyo ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iiraan sida hadalka loo dhigay waxaa la dilay abaanduliyaal taliyayaal sarsare Iiraan haddii daawadayaasha HBN aan u sharaxo waxa ay ka horumarsan tahay wadamada Yurub qaar ka mid ah shacabkeeda 90 milyan ayuu ka badan yahay waa wadan leh jaamacadaha ugu badan bariga dhexe aqoon-yahanada ugu badan bariga dhexe waxa uu leeyahay wadankaasi khayraad aad u fara badan oo ay saliidda ka mid tahay khayraadkaas ayuu nacab badan ku qalifay ku kasbaday muddo badan ayaa go'doomin lagu hayay sidaalkiisa wixii ka horeeyay BRICS oo hadda uu suuq weyn ku helay oo lacag badan ka helo go'doomin ayaa muddo dheer lagu hayay iyada oo waxaas oo dhan ay jiraan ayaa Iiraan agabkeeda militariga ay horumar ku samaysay oo gantaaladan aad arkaysid iyo droniska gantaalada waliba kuwa ugu khatarsanaa ee guuxa ka dheereynayay iyo droniska kuwa ugu khatarsan oo xataa ay ruushka ku caawisay oo ruushka ay ka caawinaysa xataa sida loo sameeyo droniska horumar ayay ku tilaabsatay waxaas oo dhan marka laga gudbo Iiraan militarigeeda haddii qof uu meesha ka baxo isla markii ayaa la bedelayaa isbedelkii degdega ahaa ee la sameeyey ayaa keenay falcelintii loogu talagalay in la qaado hadda ilaa iyo 6 dufcadood oo weerara ayaa la marayaa oo keliya sida Mareykanka dhinaciisa hadal ku dhigayaan dagaalkan ilaa ay 7 inuu qaataa dhici karta Iiraan sida u dhigaysa diyaar uma ah inay xabad joojin saara ku qaadato sababta qadadkeedii asaasay oo dhan ayaa laga gudbay Netanyahu laftirkiisa shalay markii uu haleelay oo ama nasiib ama ku talagal ha noqotay oo madaxdii safka hore ee militariga laayay asagoo booteynaya oo telefishinada ka soo baxay oo yiri dagaalkan ma joojinayno ilaa iyo intaan Iiraan jilbaha u dhigayno oo nuclear burburinayno hadda waxaa moodaa erayadooda inay cunayaan oo ay leeyihiin
keligeen kuma filna in aan burburino. tan kale oo ayadan aan meesha ka maqnayn waxa weeye sida khabiirada waxaan la fagura ay hadalka u dhigayaan Iiraan falcelinteedan ay ku qaaday Tel Aviv ayaa waxa ay muujinaysaa militariga Iiraan inuu awood u leeyahay in uu si dhaqso ah cidii ka dhimata ama talis sare ha noqoto ama talis kale ha noqoto dhaqso loo bedeli karo ciidankana uu howshiisa si dhaqso ah dib ugu habaysan karo sida uu hadalka u dhigayo nin arrimaha militariga hadal la fagura la yiraahdo Elijah Magner duqeyntan gantaalada isdaba joogga ah ee ku soo dhacaya meelo kala duwan oo Israa'iil ka mid ah ayaa waxa ay Israa'iil kala kulmaysaa inay dhib ku tahay sidii uga hortagi lahayd ayadoo leh nidaamkii difaaca cirka muddada dheer ku faani jirtay oo ka mid yahay kuwa ay ayaga samaysatay oo laba ah iyo midka Mareykanka uu keeno THAAD yiraahdo waxa sidoo kale Iiraan uu ku sheegayaa ninkan khabiirka ah in ay muujisay in ay gantaalo fara badan hal maalin soo ridi karayso waliba saacada gudahood inay gantaalo badan soo ridi karayso waxa gantaaladaas ayaa waxa lagu sheegayaa kuma filna oo kaliya in hal magaalo ama laba magaalo la beegsado buqcad kasta oo Israa'iil ka mid ah ayaa la beegsan karaa Israa'iilna waa ku guuldareysatay inay gantaaladaasi ka hortagto ay difaacdo ama ay cabsi geliso Iiraan inkastoo ay duqeyn xoog leh intuu geysatay saraakiishii safka hore ay leysay oo ay Israa'iil wadanku kala daadanaya ciidanku waa kala daadanaya cagsigeeda ayaa dhab noqday waxaadna moodaa Israa'iil inay ruday cad aynan calalin karaynin waa gartay cad aysan calalin karin bay ruday waa hagaag xaggaas aan ka sii ambaqaadno waxaa la leeyahay waxaa la isku hayay waxay ahayd oo Netanyahu ku andacoonayaa Iiraan inaysan helin hub nuclear oo qatartaasi uu ka hortagayo laakiin arrintan warad waxay leeyihiinba waxay ku riixi kartaaba Iiraan inay si degdeg ugu dhawaaqdo inay nuclear samaysatay ama ay ku dhaqaaqdo samaysashadiisa arrinkaas inoo faahfaahay Maxamed Jim Walsh oo aan nin khabiir ah oo arrimaha nuclear ku takhasusay oo Mareykanka jooga ayaa waxa uu sheegayaa in uu filayo in isduqeyntan Israa'iil iyo Iiraan u dhaxaysa in ay dhowr maalmood soconayso maalmo cayiman muu sheegin laakiin dhowr maalmood waxay rabtaa noqon kartaa waxa ugu muhiimsan ayaa waxay tahay buu leeyahay sida uu sharaxaad ku bixinayo haddii Iiraan mas'uuliyiinteeda ay go'aansadaan inay barnaamij nuclear samaystaan ayagoo ka jawaabaya weerarka xadgudubka ee dalkooda lagu soo qaaday way yeeli karaan muddo 20 sanadooda waxa ay diidanayeen in ay hub nuclear samaystaan laakiin hadda marmarsiyo fiican ay haystaan haddii hub nuclear samaysanayaan waxay la tahay buu leeyahay marka la fiiriyo qoraalada aqoon-yahanadu ay qoreen ee la xiriira arrimaha nuclearka ee wadanka Iiraan waxaa hubaala in hadda ay jirto siyaasad lagu taageeri karo ama la aaminsan yahay weerarka Israa'iil Iiraan ku qaaday in ay horseedi karto Israa'iil waxay raadinaysaa cagsigeeda Israa'iil waxay raadinaysaa inay burburiso nuclearka Iiraan laakiin cagsigeeda ayaa dhici karta Iiraan waxay go'aan ku qaadan kartaa in ay samaysato hub nuclear cid wax ka qaban kartana ma jirto Walsh ayaa waxa sidoo kale sheegaya arrintaasi waxay noqonaysaa masiibo u soo hoyatay gobolka Bariga Dhexe sababtoo ah hubka sida baahsan wax u gumaada ayaa faafaya wadamo badan oo gobolka kamid ah ayaa ku dayanaya oo Saudi Arabia kamid tahay iyo Imaaraadka iyo kuwa lamida caalamkana ma noqonayo mid nabad ah waa sidoo hadal ku dhigaya Iiraan maxay hadda samayn doontaa ayuu isweydiiyay ma laha ciidan cir oo xoog leh ma laha ciidankeeda xoogeeda iyo wixeeda dhan wuxuu ku kooban yahay gantaalo iyo diyaarada aan duuliye lahayn go'aan ayay ku qaadan kartaa in ay daba gasho oo ay ku dhawaaqdo inay samaysato hub nuclear kuna qasabto dhinaca mucaaradka Israa'iil weerarka ay qaateen inay qiimo weyn ku fariisato ma aha oo kaliya inay war xun u tahay caalamka oo dhan gobolka oo dhan iyo waxa u soo hoyanaysa in tartan hubka uu yimaado ayuu ku soo gabagabeeyay hadalka waxa weeye haddii si kale loo dhigo Israa'iil falka ay geysatay ayaa keenayaba
iiraan inay hub nuclear samaysato si ay jiritaankeeda u difaacdo. waa gartay arrin muhiima jirta oo isha lagu hayo waa dagaalkan maraykanku inuu soo galo oo israa'iil ay ku soo jiido arrintanna wax badan baynu ka hadalnay dhowrkiis bilood ee ugu dambeeyey maxay khubarada ka tiri ugu dambeyn maraykanka dagaalka in lagu soo jiido inta aan lafagorayaasha ka hadlin maraykanka hadda waxaad moodaa in uu danihiisa ilaashanayo ilaa iyo 24 saac lasoo dhaafay wuxuu ku kooban yahay oo keliya inuu israa'iil ka caawiyo sidii gandaaladan looga dalfin lahaa. laakiin waxa mustaqbalka ay noqon doonta ayaa su'aalo badan laga keenayaa sida aad xusteeba su'aalahaasi khabiiro badan ayaa isweydiinaya. waxaa ka mid a khabiir asalkiisa uu iiraan yahay oo la yiraahdo Shahram Akbarzadeh oo professorka ah jaamacad siyaasadda bariga dhexe laga dhigo ee ku taala waddanka Australia. wuxuu sheegayaa in Israa'iil iyo Iiraan labadaba u muuqdaan in dagaalkan ay hadda bilaabeen u noqon doono mid muddo dheer socda. labada dhinac inay aad isu weeraraan ayaa la filaya. Iiraan waxay hadda ka jawaabaysaa oo keliya weerarkii lagu soo qaaday. Israa'iilna waxaad moodaa inay iyadana jawaab celin sameynayso. laakiin xaqiiqadu waxay tahay Iiraan ma u dulqaadan doonto in Israa'iil ay weerar ku qaado goobaha xasaasiga ah. waxa weeye xadgudub weyn iyo taliyaasheeda militariga iyo saanjiistayaasheeda iyo xarumaheeda militariga. waxaana muuqata inay Israa'iil arrintaas ku qaldantay. Israa'iil xaaladda hadda waxay noqotay mid aad khatar u ah, gobolka oo dhan khatar ku ah. maxaa yeelay buu leeyahay dad badan oo arrimahan la socda ayaa waxay tilmaamayaan in ay jirto fursad dagaalkani uu ku baahi karo gobolka oo lugta u soo gelin karta dowladda Maraykanka. waa sidoo Akbarzadeh hadalka u dhigayo. Iiraan dagaal ma aynan doonayn inay Maraykanka la gasho, laakiin marka la fiiriyo awoodda militariga ee meesha socota ama Israa'iil ha isticmaasho ama Maraykanka ha isticmaalo waxay isdhaanta lama arko. waxa weeye waxay arrintaasi keentay in Israa'iil ay u muuqato inay ku rajo weyn tahay in ay rabto Maraykanka inay ku soo riixdo dagaalka. markay dagaalkan Iiraan ku bilaabaysay Iiraan inay jawaabayso waa la ogaa. waxayna Israa'iil la ahayd in ay isku halaynayso colaadani mar hadday bilowda inay Maraykanka mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu hore u ballan qaaday inuu ilaalinayo amniga Israa'iil. arrintaasna waa arrin uu professorkaasi ka hadlay. waa gartay waa hagaag maxamed arrin cajiiba soo korortay oo ah Iiraan inay ku andacoonayso warbaahinteeda ku dhow ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan uu yar 2 diyaaradood oo F-35 la soo riday. waa markii ugu horeysay adduunyada la soo rido diyaaradaasi. sidee u suurta gashay Iiraan in ayadoo xarumo badan la weeraray weerarka kadis ku ahaa taliyaal badan laga dilay weerarka la sheegayo in gudaha Iiraan lagu diyaariyay diyaaradaha droonka oo saldhigyada lagu weeraray nidaamyada difaaca arrintan maxay khubarada ku fasiraysaa? Iiraan waa ka duwan tahay Maraykanka iyo Israa'iil. haddii khasaare uu gaaro Israa'iil lagama yaabo khasaaraha gaaray inay sheegto. Maraykanka dagaalkii uu kula jiray xoutiyiinta khasaaraha gaaray lama sheegaynin. laakiin Iiraan waa ka duwan tahay ayadoo saraakiishii safka hore ah dadkii labeynta u ahaa militarigooda, abaanduulihii ciidamada qalabka sida, madaxii ciidamada, taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka, madaxii ciidamada cirka la dilay ayay caalamka u sheegtay. Iiraan haddii ay diyaaraddaas soo rigtay waqtiga unbay ku xiran tahay. waa soo bandhigi doontaa sawir iyo muuqaal. waqtiga ayay ku xiran tahay. Iiraan ma aha, waa xukuumad sumcadeeda iyo hadalkeedu isleeyahay. waxaa ayadana xusuusinaya daawadayaasha HBN markii wadahadalada Maraykanka iyo Israa'iil Maraykanka iyo Iiraan ay bilaabanayeen. inta uunan wadahadalada bilaaban Maraykanku wuxuu ku hanjabay, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wuxuu ku hanjabay 2 bilood gudahood in ay Iiraan nabad ku qaadato ama dagaal ayaa lagu qaadayaa. 2 bilood waxay dhamaatay maalintii Khamiista.
jimcihii weerarkan subaxnimadii weerarka la qaadiyey waxay ahayd maalintii 61aad ma aha dagaalkani sida ay Iiraan u aragto mid Israa'iil keligeed ku kooban. waxay aaminsan tahay inuu Maraykanku ku leeyahay. diyaaradahan F-35 waa diyaaradaha Maraykanka iyo Israa'iil ay ku faanaan ee dhibaatada weyn loogu geysanayay wadamada gobolka, ama ha noqoto wadanka Suuriya caasimadiisa Dimashq, oo xataa xukuumadii hore joogtay Bashaar al-Asad ayay duqeyn jireen. Yemen waxay duqeynayeen Xudayda iyo Sanca, oo duqeyntii ugu dambeysay waad ogeyd diyaarad rakaaba in lagu burburiyey. koonfurta Lubnaan waad ogtahay dhibka ay ka geysato. diyaaradahani waxa weeye diyaarado kamid ah diyaaradaha ugu qaalisan ugu qiimaha badan ee uu Maraykanku leeyahay. Iiraan haddii ay sheegtay in labada diyaarado soo riday, waa markii ugu horeysay diyaaradahani ay dagaal ku dhacaan. diyaarad sidaas oo kale oo sigatay ayaa jirta markii Xuutiyiinta iyo Maraykanka ay isku haysteen arrimaha difaacidda Israa'iil. hadda laakiin waxaa cad haddii 24 saac gudahood Iiraan ay soo riday laba diyaaradood, in diyaaradahani ay la soo ridi karo. Iiraan ay haysato agab ay ku soo rido, taas oo macnaheedu noqonaya hadduu dagaalka sii dheeraado oo 24 saac oo walbaba ay mid soo dhacdo ama laba soo dhacdo, waxa weeye dagaalka waxa uu noqonayaa mid hal dhinac u janjeera. sababtoo ah Israa'iil ciidanka cirka ayay ka nooshahay, xooggeedoo dhan waa ciidanka cirka. qalabka ay haysatana waa qalabkii Maraykanka iyo hubkii Maraykanka, ama gantaalada dhulka hoostiisa lagu burburiyo ha noqoto, ama gantaalada labada tan ha noqoto ay ku burburinaysay marinka Gaza. hadda waxaad moodaa in Maraykanka iyo Israa'iil laftirkooda inay arrintaasi ku tahay caqabad. haddii diyaaradaasi dhacdana oo diyaaradahaasi Iiraan gudaheeda ku dhacdana, cadowga ay u yaqaanaan Iiraan iyo saaxiibadooda oo aanan magacyadooda anaga xuseynin ayaa laga yaabaa in ay ta furfurtaan akhristaan. Iiraanna ogow waa taqaanaa waxa loo yaqaano afka Ingiriisiga reverse engineering, oo macnaheedu yahay agab military oo caaqaba leh haddii uu gacantooda galo in ay inta kala furfuraan, naqshadaystaan, asagoo kala samayn karaan. diyaaradihii droniska ee Maraykanka ayay hadda kahor ku samaysay, oo diyaaradahaasi weli hadda safka ma soo gelin. qaar xog ayay ururiyaan, qaarna bombooyin ayay wataan. dhowrka maalmood soo socota ayaa laga yaabaa inay soo howlgalaan. marka diyaaradahaasi inay wax noqoto dharbaaxi xoog leh ayay ku tahay ciidanka cirka ee Israa'iil, oo ah awoodda keliya ay isku halaynayso marka ay timaado dagaal. waa gartay. xiisadan dabcan cid walba waxay leedahay farahay ka bixi kartaa. ma jira wax la oran karo dadaal ama dhexdhexaadin la samayn karo? inagoo xalay ogeyn golaha ammaanka wixii ka dhacay, ma laga yaabaa arrintan in afka la qabto intaysan burqan? ilaa hadda anaga intaan xoogaal u nahay doodii xalay golaha ammaanka qaramada ka midoobay oo aragna waxa ka dhacay. wadamada la leeyahay arrintan waa u fura dhudhuuban yihiin, waa geli karaan, waxaa ka mid ah Shiinaha. Ruushka si cad ayuu u diiday. hadda haddii aan fiirsano hawada wadanka Iiraan, waxaa soo gashay diyaarad ka timid dhinaca Shiinaha. diyaaraddaasi waxaa laga yaabaa waa diyaaradda keliya ee hawada wadanka Iiraan maraysa, oo laga yaabo in ay qaadayso wado wafdigii dhexdhexaadinta keeni lahaa. laakiin Iiraan uma muuqato in ay dhexdhexaadin yeelayso, iyadoo aanan si fiican, waa sida hadalka loo dhigay, ayn Israa'iil u edbin xanuunka ay marinka Gaza gaarsiiso oo kale aan la gaarsiin. in Israa'iil oo weli cid walba isku taagaysa oo qawaaniinta caalamiga burburinaysa, in Iiraan inay la hadasho suuragal maaha. Iiraan dhankeeda marka laga fiiriyo taas, dhinaca Israa'iil marka laga fiiriyo ayadaa dabkan shiday. weliba sidee ugu dhacday Israa'iil oo dadkeeda 10 milyan ka yahay? waa sawirkaas weeye, dadka tus weynee wax yar sawirkaasi. diyaaradda keliya ee hawada saaran waa meesha calaamadda fallaarta ay ku taalo. waxa ay ka soo gashay dhinaca waqooyiga ee wadanka Iiraan ka soo gashay, waxaana leh diyaaraddaasi Shiinaha.
wafdi shiina ayay wadaa laga yaabo inay dhexdhexaadin wadaan hawada wadanka Iiraan oo dhan way caddahay aan ku noqdo qodobkii aan waday marka dhinaca Israa'iil marka laga fiiriyo dagaalkan ayadaa dabka shiday ayadaa bilowday dagaalkan marka ay bilowday Israa'iil shacabkeedu waa ilaa iyo haddii loo buunbuuniyo oo loo badiyo 10 milyan ka soo qaad Iiraan waa 90 milyan wadamo badan oo Yurub ayay ka dad badan tahay midda kale Iiraan waa wadan warshado leh oo wax soo saara oo gacantiisa ku tiirsan khayraad fara badan leh sidee ku keentay dowladdaas la biiro oo Mareykanka uu tabantaabiyo in ay sheegato inay xukuumadda Iiraan ridayso ayaa Iiraan waxay u aragtaa inay khad cas tahay afka ku ballaarin mayso Iiraan laftirkeeda waxaa u qarsoon inay Israa'iil ka taqalusto dhowr goor horena hogaamiyaha ruuxiga waa sheegay taliyaashii la dilay qaar kamid ayaa sheegayay haddana waxaad moodaa ballankii ay qaadeen in ay magaalada Tel Aviv ka dhigayaan meel eber in ay hawsheeda wadaan waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay dabcan wixii soo kordha daawadayaal si joogta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo haddaba waxaan warar ah oo soo dhacaya iyo macluumaadyadan iyo xaaladan si aad u heshid wararka rasmiga ah oo sugan haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir haddii aad hore ugu xirnayna waad ku mahadsan tahay go'aan